6 sabab oo dumarku ay u jecel yihiin inay guursadaan nin ka yar. 6 arrimood ka ogow sababta ay dumarku u jecel yihiin nimanka ay ka da'weyn yihiin. Waayadii dambe waxaa soo kordhayay dumarka guursanaya ragga da'doodu yar tahay oo ay ka weyn yihiin. Haweenka ugu caansan ee la xusi karo waxaa ka mid a Kate Moss, Priyanka Chopra iyo Heidi Klum, iyo sidaas oo kale haween Soomaaliyeed kuwaasoo dhammaantood ragga ay isjeclaadeen aan u eegin farqiga da'da ee u dhexaysa. Hadda ka hor inta badan ma dhici jirin in haweeney uu guursado nin ka yar da' ahaan sababtoo ah bulshada ayaa hadalhayn ka dhigan jirtay. Maxay yihiin sababaha keenaya in dumar badan ay door bidaan ragga dhalinyarada ah? 1. Carafta ragga da'da yar waxay aad u soo jiidataa haweenka. Taas waxaa sabab u ah in jirkooda uu ku jiro waqtigii ugu caafimaadka badnaa. Run ahaantii, daraasado ayaa muujinaya in mar walba oo da'deennu ay badato uu jirkeennu isbedelayo caraf ahaan. Khubarada u kuurgalay arrimahan waxay sheegayaan in ninba ninka uu ka da'weyn yahay uu xoogaa ka shiir kulul yahay. Ragga dhalinyarada ah ayaa badankood ku dadaala in ay iscarfiyaan iyagoo isticmaalaya noocyada baraafuunada ee jirka iyo kan dharkaba. Sidaas daraaddeed waxaa aad u sahlan in ragga dhalinyarada ah ay soo jiidasho yeeshaan. 2. Laba jiil oo kala duwan. Sabab kale oo dumarku ay u jecel yihiin in ay guursadaan ragga aadka uga da'da yar waa in labada dhinac ay ka kala jiraan laba jiil oo kala duwan. Mar walba lamaanaheedu wuxuu dunida ka qabaa fikir cusub oo la jaan qaadaya jiilkiisa. Labadooduna way ku raaxaysanayaan caalamka cusub. Qodobka 3. Xaragada dheeraadka ah. Nimanka dhalinyarada ah waxay caan ku yihiin in ay mar walba ka fikiraan labiskooda iyo sida ay u egyihiin. Waxay ku dadaalaan in ay xirtaan dharka ugu dambeeyay, aadna isu qurxiyaan. Tusaale ahaan, xaragada ayay ka doorbidaan nolosha iska caadiga ah, waxayna ku tartamaan waxyaabihii ugu dambeeyay ee soo kordhay. Haddaba daraasad ayaa qeexday in dumarka waxyaabaha ay ragga ku xushaan ay ka mid tahay labiska iyo xaragada, taasoo aad u soo jiidata maadaama dookhooda qayb ka mid ah uu yahay. Qodobka 4. Firfircoonida. Nimanka da'da yar waxay hayaan tamar dheeraad ah waxayna isku dayayaan in ay sameeyaan waxyaabo xiiso badan oo lamaanahooda ay kala qayb qaadanayso. Tusaale ahaan, waxay noloshooda qayb ka mid ah ka dhigaan jimicsi joogto ah oo ay caafimaadkooda sare ugu qaadaan. Waxa kale oo ay ka fikiraan arrimo ay ka mid yihiin dalxiiska iyo raadinta khibradaha cusub, taasoo sii xoojisa xiriirka lamaanaha. Qodobka 5. Farxadda dumarka. Nasiib darro, qaar badan oo ka mid ah bulshada hadda ku nool dunida waxay aaminsan yihiin in haweeneydii gaarta 30 sano ay tahay mid da'deedu ay weyn tahay. Markii la arko nin la haasaawayo haweeney da' weyn, waa la xantaa, laakiin dumarka waxay dareemaan farxad aad u sarreysa marka ay la kulmaan nin ka da' yar oo ku qadarinaya quruxdeeda iyo dadaalkeeda. Qodobka 6. Carruur kama fakaraan ama kuma degdegaan. Dadka marka ay da'doodu weynaato waxay dareemaan cadaadis ku aadan in ay carruur yeeshaan, laakiin dhalinyarada weli yaryar waxay dareemaan in ay haystaan waqti dheeraad ah, kamana fakaraan in haddii ay guursadaan haweeney ka da'weyn ay ku dhacdo carruur la'aan. Taas waxay fursad siinaysaa in haweeney dhaaftay xilligii dhalmada ay hesho lamaane da'yar. Intaas ka sokow, waa laga yaabaa in ay jiraan sababo kale oo ay dumarku ku doorbidaan ragga da'da yar ee ay iyagu ka weyn yihiin.